في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. waxaanu yani bishaan oo dhan baanu ixtifaalka samaynaynay oo mu'miniinta maaragtay meel kastaanu ixtifaalkii ku dhigaynay sida caalamka islaamka oo dhan dunida adduunyada oo dhan dadka mu'miniinta oo ku sugan yaa ixtifaalkii laga samaynaya habeen iyo maalin jacayl nabiga la jecel yahay calayhi salaatu wasalaam maxabatan lahu wa tacdiiman lahu wa iimaanan lahu sala allahu calayhi wasalam. meesha ay firqada yar ee daallada ah waa firqatu lwahaabiya khawaarijta ay diidayaan in nabiga ixtifaal loo sameeyo sala allahu alay dhalsiisa loo ixtifaalo ay diidayaan nabi maxamed in loo ixtifaalay diidayaan isla markaa waxay u ixtifaalayaan maxamed bin cabdiwahaab waa wax mashhuura kutubtooday ku qoran tahay culimmadoodii baa fidyoonaya kuwa ayagu culimmada u yaqaaneen ibnu baaz iyo cusaymiin iyo yani kuwa kan culimadooda isku magacaabay culimo isku magacaabay culimo maahe culamaa wahaabiya waxay leeyihiin maxamed bin cabdiwahaab baa loo ixtifaalaya usbuucu sheekh baa la yidhaha hadda maalin maaha usbuuc idil baa loo ixtifaalaya usbuucu sheekh. waxaa aada u yaab badan ma isweydiiyaan ayagu talow oo maxamed bin cabdiwahaab waan u ixtifaalnaayo kitaabka yani kutubtoodii buu ku yaalla usbuucu sheekhe maxaan u diidaynaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in loo ixtifaal maxaan u diidayna xafladdan maxaa loo sameynaya waa shay diini ahoo la isugu yimid oo marka waxaa maxamed bin cabdiwahaab lagu xusaayo waa maxay marka diini maha miya asago malaha diini maha wax yaab badan wey bal weydiiya badan yani kutubta ma ku qoran tahay cuthaymiin ma ka hadlay ibnu baas ma ka hadlay kutubtooda ma ku qoran tahay usbuucu sheekh ilaahay baan ugu xamdinaynaa ninkan mujadid buu ahaa qarnigii 12aad buu diinta cusboonaysiiyey waa nin ilaahay diinta usoo diray buu ahaa kaasa meesha ku qoran muxuu cusboonaysiiyey diintii buu baabi'iyey ya siiradiisa waa la yaqaanaayo siiro madow oo mugdi uu leeyahay aimada islaamka iyo culimmada islaamka iyo ahlubeytkii buu laayiyo mujrim buu ahaa culimmada islaamka o dhan ba ay ka dugeen oo daali mudili u ahaa saasaa kutubta ku qoran wax uu weyneeye diin u weyneeyey iyo diin u nooleeyey midna ma jiraan hal kitaab oo lagu intifaaco ummadda uga tegayna male hal kitaaba oo lagu intifaaco oo culimmada ka waaweyneyd may ixtifaalka u sameeyaan aawa aimadii islaamka ee madaahibta lahayd may imaamu abu xaniifa iyo imaamu maalig iyo imaamu shaafici iyo imaamu axmed may usbuucu sheekh u dhigaan haddii dad diinta nooleeyo diinta loo dhigayo aimadii islaamka imaamu bukhaari may u sameeyaan aimadii islaamka may u sameeyaan maxamed bin cabdiwahaab markii loo fiiriyo culimadii islaamka muxuu ka yahay marka usbuuca asaga ay u samey marka waa qolo gaar lahoo qarad gaara lahoo mabda gaara aaminsan oo wax gaara wadato oo ayaga un keliya islaam isu yaqaano oo mujadidkooduna maxamed bin cabdiwahaab culimadooduna kuwa ayey soo maa dad acmo oo wada indhala oo kulligoodba mugdi ku jiro ilaahay baadiyey subxaanahu watacaala marka taasaanu weydiinaynaayo waxaanu leenahay anagu nabiga calayhi salam baan ku farxaynaa ixtifaal baan u dhigaynaa xafladihiisaan markasta bishoo lasha qabanaynaa adinkuna maxamed bin cabdiwahaab u ixtifaal wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamed bin aqulu qowli hada waastaqfir llah li walakum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu